السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي wanaagsan meel kasta aad joogtaan. waa mar kale barnaamijkii barashada daawooyinka qaybtii 16aad. qaybtan waxaanu ka soo qaadan doonaa daawooyinka la isku yiraahdo anti tuberculosis oo ah daawooyin lagu daaweeyo xanuunka loo yaqaano markii la soo gaabiyo magaciisa TB-da ama se tuberculosis afka Soomaaliga lagu dhaho TB-shida ama se TB-da. haddaba daawooyinkan la isku yiraahdo anti tuberculosis waxay u kala baxaan dhowr nooc, sida waxaa kamid ah daawada la yiraahdo isoniazid, rifampicin, ethambutol iyo paracetamide. haddaba daawooyinkan dhammaantood waa daawooyin hal group ah ama se hal qayb ah oo dhammaantood isla wada shaqeeyaan, qofkana uu qaadashadeeda ay mudan tahay inuu isku xigxijiyo ama se inuu waqti isku dhow u qaato. haddaba qaybtan waxaan kusoo qaadan doonaa mid kamid ah daawooyinka lagu daaweeyo xanuunka loo yaqaano TB-shida. daawadaasna magaceeda waxaa loo yaqaano isoniazid. haddaba waa maxay isoniazid? isoniazid saa idin sheegay waxay kamid tahay groupkan daawooyinka lagu daaweeyo xanuunka TB-da. haddii aan guda galno, isoniazid waxay ku timaadaa kaniini, sharoobo iyo weliba irbad. haddaba qaabkee baa loo isticmaalaa daawadan isoniazid waa daawo markaasi antibiotic, waxaana loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xanuunka TB-da, waxayna si wada jira loola isticmaalaa ama loola qaataa noocyada kale ee daawooyinka ah ee groupka ay yihiin ee la dhaho, sida daawada magaceeda la dhaho rifampicin, paracetamide iyo weliba ethambutol. daawooyinkan dhammaan waa daawooyin hal qayb ah oo ay mudan tahay in isla wada qaato. sidoo kale daawooyinkan waxaa loo isticmaali karaa bakteeriyada ay sababto xanuunkan loo yaqaano tuberculosiska ama se waxaa la yirahdo mycobacteria of tuberculosis. haddii aynu intaasi uga gudubno qaybta hordhaca ah, aynu usoo laabano waxaa loo yaqaano side effect. haddaba daawo kasta sidaa la socotaan waxay leedahay wax la dhaho side effect ama se qofka ay ku yeelan karto saameyntaas waxay noqon kartaa mid daran ama se mid caadi ah. haddaba daawo kasta markii la qaato qofka waxaa jira waxyaabo calaamado uu isku arkayo. calaamadahaasna waxaa waaye calaamado aan aad u sii weyneyn oo qofka saacadaha ugu horeeya uu daawada qaato isku arkayo, kadibna ay ka ba'ayaan oo wax dhiba qofka uma geysan karo. haddaba side effectiga markii aan usoo laabano daawada loo yaqaano isoniazid ee lagu daaweeyo xanuunka loo yaqaano TB-da ama se tuberculosiska waxaa kamid ah qofka haddii uu muddo badan wado, siiba haddii uu wado muddo badan oo aan loogu talagelin. tusaale ahaan dhakhtarka hadduu ku yiraahdo waxaa wadaa muddo 6 bilood ama se muddo 4 bilood in aad waqtigii ka badisid oo 9 bilood ama se ka badan aad wadid, qofka waxay u keeni kartaa haddii uu muddada isagu iskiis u badsado in markaasi qofka uu ku dhasho caabuq dhanka beerka ah ama se waxa loo yaqaano liver inflammation oo markaasi beerkiisa inuu qaado caabuq. dhammaan daawooyinka waxay ku wanaagsan yihiin qofka inuu markaasi uusan iska dheereen waqtigeeda. macni tusaale ahaan haddii uu dhakhtarka ku yiraahdo daawadan 4 bilood ama 3 bilood, waa in aad 3daas bilood ama se 4taas bilood aad ku ekaysiisa ilaa amar dambe inuu dhakhtarka ku siiyo mooye. haddaba qaabka ay u shaqeyso daawadan waxay u shaqeysaa inay markaasi dhex gasho sameynta unugyada hoose iyo dufanka laga soo saaro DNA-da ee darbiyada bakteeriyada sababta xanuunka loo yaqaano TB-da ama se TB-shida. dosage ama qiyaasta daawadan la qaadan karo ama se qofka la siin karo. qiyaasta daawadan qofka uu qaadan karo hadda waxay ku xiran tahay qofka da'diisa iyo weliba xaaladiisa sida ay tahay, ama hadba xaaladiisu meesha ay marayso, haddii ay tahay xaalad caadiya ama se xaalad dhexdhexaada ama xaalad aada u culus. tusaale ahaan oo kale haddii qofka loo soo qoro qiyaas dhan 300 miligram, waxaa wanaagsan qofka inuu qaato maalintii hal mar ama se 24 saacba hal mar. storage kaydinta daawadan waxaa habboon in lagu keydiyo meel ay heerkulkeedu u dhaxayso 25 digrii ilaa 30 digrii. sidoo kale daawadan waa in laga ilaaliyaa ama se waa in markaasi laga taxadaraa oo aan la dhigin meel markaasi qorax badan leh ama se meel markaasi cadceedu ay ku dhacayso.
precautions taxadar. Daawadani waxaa wanaagsan in markaasi laga taxadaro in la siiyo iyadoo aan dhakhtarka lala tashan, gaar ahaan hooyada uurka leh iyo weliba sidoo kale hooyada ilmaha nuujinaysa. waxaa wanaagsan in laga taxadaro daawadani inta aan la siinin ka hor in markaasi lala tashto dhakhtarka inay qaadan karto iyo in kale. haddii markaasi hooyo uur leh oo xanuunkan ku dhaco, xanuunkan loo yaqaano TB-da ama TB-shida, waxaa wanaagsan in marka hore dhakhtarka la geeyo oo isaga uu go-aan ka gaaro in daawadan ay qaadan karto amase in loo bedeli karo oo mid kale oo safe oo ah markaasi amase wax dhibaata u keeneen ilmaha ay qaadan karto. haddaba maxaa dhici kara haddii daawadani qofka uu iska badiyo? tusaale ahaan oo kale waxa loo yaqaano overdose ama qiyaastii loogu talagalay qofka hadduu ka badsado. haddii qofka loo soo qoro oo kale inuu qaato 200 miligram maalintii, haddii uu markaasi qofka uu iska badiyo uu qaato 400 ama 300 miligram oo qiyaastii dhakhtarka usoo qoray qiyaas ka badan uu isticmaalo oo weliba in muddo ah uu wado, qofka wuxuu isku arki karaa wareer fara badan, neefsashada oo dhibaysa, marmarka qaarkood lablabo iyo matag iyo weliba miyir daboolid amase qofka inuu miyir daboolmo. sidaa darteed waxaa muhiim ah qofka dhakhtarka qiyaasta uu usoo qoray inuusan ka badsanin oo markasta uu raaco dhakhtarka wuxuu usoo qoray iyo weliba talooyinka dhakhtarka. drug interaction, waxaa jira daawooyin aan laisla qaadan karin amase daawooyin aysan fiicneyn qofka inuu isla qaato. haddaba daawadan loo yaqaano isoniazid, waxaa jira daawooyin aan lala qaadan karin marba qofka hadduu isticmaalayo daawadan TB-da loo isticmaalo ama TB-shida. waxaa wanaagsan daawooyinka kale uu qaadanayo inuu markasta dhakhtarka usoo qoray daawadan uu ogeysiiyo oo markasta uu ka taxadaro in daawooyinka inuu isla qaato, gaar ahaan daawooyin waxaa jira aan isla qaadan karin. tusaale ahaan oo kale daawadan isoniazid, haddii qofka daawo isoniazid loo soo qoro oo uu markaasi rabo inuu la qaato daawadan loo yaqaano painkillerka ee magaceeda la dhaho ibuprofen oo kale, waa inuu markaas dhakhtarka u sheegaa inuu daawadan uu rabo inuu qaato. markaas dhakhtarka isaga u sheegi doona haddii uu daawadan qaadan karo amase haddii uu daawadan la qaadan karo iyo haddii kale, iyo weliba haddii uu u bedeli karo oo mid kale oo aanan wax dhiba u keenin oo daawadaas uu la qaadanayo uu isticmaali karo. muhiimadu waa in markii aad qaadanaysid daawooyinka loo yaqaano antituberculose ama daawooyinka lagu daaweeyo xanuunka TB-shida, in markaas aad ka taxadartid in daawooyin kale aad la qaadatid iyadoo dhakhtarku uusan ku ogeyn. sidoo kale waxaa jira wax la yiraahdo food interaction ama saameynta xagga cuntada. daawadan inta ay ku socoto xanuunka TB-da lagu daaweeyo, inta ay ku socoto waxaa muhiim ah cunooyin waxaa jira ay saameyn ku leedahay sida kalluunka iyo beerka. haddaba kalluunka iyo beerka waa inaad iska yareysa inta daawadan aad wadid amase inta ay ku socoto. sidoo kale waxaa jira wax la yiraahdo disease interaction oo ah xanuuno lid isku ah amase xanuuno iska soo horjeeda oo haddii qofka uu daawooyinkaas xanuunadaasi uu qaadanayo ay iska hor imaadaan, ay markaasi muhiim tahay inuu dhakhtarka la tashto oo markaasi daawooyinkaasi loogu bedelo daawooyin isqaadan kara. tusaale ahaan oo kale qofka haddii uu qabo xanuunka TB-da, sidoo kale haddii uu markaasi uu qabo xanuun kale oo dhanka keliyaha ah amase beerka, waa inuu dhakhtarka la tashta oo u sheegaa in daawooyinkan uu isku qaadan karo iyo in kale. sidoo kale waxaa muhiim ah qofka markii loo soo qoro daawooyin kamida daawooyinka xanuunkan TB-shida, waa in uu dhakhtarka wax walba oo xaaladiisa ku saabsan uu u sheego. tusaale ahaan haddii uu qabo xanuunada ku dhaca beerka, keliyaha, sidoo kale hadduu qabo xanuunada loo yaqaano chronic disease sida sonkorta oo kale amase macaanka amase waxaa loo yaqaano hypertensionka dhiigkarka, dhammaan qofku waa inuu dhakhtarkiisa u sheegaa haddii uu jiro xanuuno uu horey u qabay oo daawooyinkiisa ay u socdaan. sababto ah waxaa dhici karta in daawooyinkaas horey kuugu socday iyo daawadan hadda lagu soo qoro inaysan isqaadan karin. sidaa darteed dhakhtarka markaa xaaladaada u sheegtid, waxaa markaas dhakhtarka la gudboon inuu daawadii hore kaa bedelo ama daawadan hadda uu kuu soo qoray uu kaa bedelo uu markaas uu kuugu bedelo 2 daawo markaas isqaadan karto oo aan wax dhiba ka imaan karin.
qeybtii 16aad ee barnaamijkii barashada daawooyinka amase farmakolojiga waanaga intaas. haddii aad waxun ka faa-iiday lasii wadaag asxaabta una sii sheergaree. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. haddii aad horey noola